maalin walba gabar saa muluqa looga dhigo ayadoon rabin hal la qabsado gabdhow adinkana iska daaya gaariyaashan aa koraysaan war ilaahow iimaanka i qadbeen ma sheegay aan wadanka markaa jooga nin caadi xaafad waxa ku koray suwaaqroon iska dhala ahay ya xaafad waxa ku koray ilaahay baan ku dhaartay ina adeer haddana ya sideeda fiidnimii toddobada guriga banaanka hadda uga maqana feeraha laga tubi jiray feeraha dhugteena ku irdariska maqli jiray gabdhaha dar joogana meeq abay marsanayeen gobolka markuu dhaco waa tageen waa rawaxeen dalxiis waxa qaacida la tubay ma qaacida naqaan walaalo ila adeerow jaceelkeena wadanka ku soo dhameystiran laan afar soo dhaleen iyo shan ma qaacida naqaanay gabdhii gaariyaal ay raacayeen wis waa tageen waxa aadayaan baaraday waxa la aadaya meel shishada la aadaya markay dawaqdo wax intii loo hoosgaliyo hada laga saara intee aadna adinka sharafta gabdhow iska السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لهنا قالي أنا قال السعودة جنال كنا شيء مشرف واحد لي هاي السوري دوادا هدي أي تايم مركو بعد تصوب بقطة جنال كنا فضلنا سبسكرايب بيا جنب لك النوفرة سيادة نقطة داودا كوباد داودا برنامج دينا موضوع نعاود بكسب سيء هاي ورنتي يعني مركز دقيستيد موضوع على جهة لا يعني موحى على جهة اللي مركز دقيستيد وأتصد في عن أقول دقيستيد وفيرسيد أيا واحد رامي سا وحان على جهة اللي واحد جرو ورنا إليهين رون أهانتي بريهم وحال سردح مرايي عنق يريسة أو صغيرة أو لكفصدي أو أنت كفصي لو جيستي أو لحوجي هدنا جردل وحن لو جيستي قبل أنت كفصدين المهير كهاي كفصدين الصغير كأ إيه هدنا وحي وجيستين جردل آدي رنتي أفولحن وكان الشيخ يعني وينا إن إلهي بوينا وحدة أو كهذا يعرنتي isaga oo dhaleecaynaya ninkii waxaas ku kacay ama bageystay kaaga sii daranay haddana wuxuu sheegaya uu tilmaamaya ragga kan Soomaaliyeed ee caadaystay inay kufsadaan ilmaha yaryarka ee saqiirada ah sibiyaasha ah in dhaqankani ay tahay dhaqanka gaalada runtii wuxuu tilmaamaya sheekhu in dhaqankani uu yahay dhaqan gaaleed in dhaqankani maxaa la yiraahdaa ay ka keeneen gaalada oo uusan ahayn dhaqan islaam ninka kuwa gaalada ah waxay qabaan baa lagu leeyahay amaba ay iska dhaadhiciyaan baa la leeyahay in ay ugu baxdo ilmaha yararka ah ee saqiirada ah maxaa yeelay markaad si fiirisid horta qof weyn baa tahay oo aad aqligaaga ka fikirtid oo fiirisid ninka asagoo heli karo naag weyn maxaa la yiraahdaa oo ficiis ah asagoo heli kara oo hadii uu xalaal ku rabana xalaal ku heli kara hadii uu fusuqnimo ku rabana fusuqnimo ku heli karo meel kasta ay dhoobihiin oo joogan inuu hunguriyeeyo ilmo yar oo saqiira oo aan qaangaar iska dhaafay xataa uu dhaweyn oo haddana uu dhibaato u geysto oo maxaa la yiraahdaa aan xamili karin dabcan waxaasi waxay cadeynaysaa amaba ay tilmaamaysaa amaba maxaa la yiraahdaa macruuf oo lagu garan karaa dhaqankan inuu yahay dhaqan islaami uusan ahayn uu yahay dhaqan gaalo laga soo maxaa la yiraahdaa dhaxlay ilmo yar asagoo qof weyn heli kara ninka hunguriyeynaya halkaana wada yaalo ilmo yariisa oo sabiyaho jooga ayagoo intaasoo dumar ah oo fusuqiina uu heli karo inuu ilmaha yarka kufsi u geysto runtii ani waxay ila tahay waxaan wax oo يعني معقولة غير المعقول واي wax macquul ay waxan macquul ahayn bay kala yihiin runtii aad ay غير macquul u tahay kaaga sidaran maxaa kufsi ku wata haduu fusuq iyo xaraan raba magaaladu waa buuxdaa meel aysan fusuq iyo xaraan oolin malahan muu raadsado aado duusan ba xalaal rabin oo isagu xaraan raba ilaa xaraanta dumar ay laftigooda wasaqda walaaqada jiray kuwaas muu aad u raadsado intuu sabiyada saqiirada uu kufsiga dhibaatada u geysanayo runtii wadankeena Soomaaliya aad ay arintan ugu soo badatay kaaga sii darane waxa ay ceeb u yaqaanaan gabadhii la kufsaday in xaaladeedii laga maxaa la yiraahdaa la soo bandhigo oo gabadha xaqeedii loo soo dhiciyo Soomaalidu waxay u yaqaanaan ceeb bay u yaqaanaan runtii fadeexay u yaqaanaan wartaasi fadeexii ceeb ma ahay fadeexii ceeb waxa ah in aad qarisid gabadha tan xaqeedii saqiirkan xaqiisii inaad qarisid taas ayaa ceeb iyo fadeexad ah haddii gabadha xaqeedii loo soo dhicin lahaa ninkan tiirka la taagi lahaa oo nin kasta oo gabar Soomaaliyeed kufsada ama ha yaraatay ama ha weynaatay tiirka la taagi lahaa waxaan qabaa kufsiga Soomaaliya inuu ka yaraan lahaa hadiiba lagu wado tiirka la taagayo ogyahay ninka wax kufsanaya in la dilayna oo tiirka la taagayo aan la cafinayn haduu ogyahayna wala inuu san jiri doonin nin dambe oo gabar kufsada ama ha yaraatay ama ha weynaato
waa kana sheekheennii caalimka ahaa oo ka hadlaaya arrintii xaqiiqadan ay noo tilmaamayeen dhegayso war ninkan kadaata shahwa hadday ku hayso balaayo allah kugu ridee war shahwa hadday ku hayso mid kula eg ama kaa weyn oo xumaanta aad doonayso kula ogol baabad heli kartaaye gabadha 10 jirka maxaa kuu geey ee waxan baan xamili karaynba maxaad ka doonto maxaad ka raasid shaki ma laha filim buu arkay shaki ma laha gaaluu ku arkay laana gaalada qaad waxaa jira shuduudka qaba qaar waxaa jira shuduudka qabo jiran wadaadada kaniisadaha qaar baa qaba shuduudka oo jiran oo naagta leeg uguma baxdo taweyn uguma baxdo ilmaha yarkee 3 jirka qaar bay ugu baxdaa qaar bay 5 jirka ugu baxdaa qaar bay 10 jirka ugu baxdaa shuduudkii nooca ahaba ummadan soo galay sidaas daraadeed waxay u baahan tahay waqfa waahida tilaaba adag iyo qaraar adag iyo go'aan adag oo la fuliyo oo ilaahay shariicadiisa waafaqsan baa lagu soo afjari karaa waxa kale waad ciyaaraysaan dhiigna waad jooji weydeen qashinna waad jooji weydeen walaalahayga qalbiga run ahaantii sheekhu sida uu tilmaamayo sheegayo waa arrin jirto oo xaqiiqo ah waay waxay u baahan tahay waddankeena Soomaaliyeed in ay dhalinyaradu iyo shacabku iyo waalidiintu ay kacaan haddii dowladda Soomaaliya ay wax ka qaban weysay ay arkayso meel kasta ay joogaan nimankii inay waxa ilmaha yarkoo saqiirada kula dhaqmayaan oo gabdhihii dhalinyarada kula dhaqmayaan oo maamooyinkii aysan cafinaynin haddana cid ka dhiidhinayso ka hadlaysa aysan jirin shacabku iyo dhalinyaradu inay kacdo dadweynuhu inuu kaco waalidku inuu iska daayo waxa kan ay daboolayaan iyo waxaan ay qarsanayaan iyo waxaan ay ceeb u marayaan inta iska daayaan xaqiiqada ay soo bayaanayaan gabar kasta oo dhibaatada loo geysto maxaa la yiraahdaa ilmo kasta oo saqiir oo la kufsado maxaa la yiraahdaa hooyo kasta oo maxaa la yiraahdaa la kufsado dhibaatada loo geysto intay halkaas soo istaagto in maxaa la yiraahdaa la cadeeyo nimankii waxa u geystay barta la soo dhigo oo maxaa la yiraahdaa aan la qarinin oo la daboolin oo lacag la qaadanin oo aan la basabasaynin oo aan maxaa dhahaa la daboolin ayaa loo baahan yahay runtii waxa loo baahan yahay saqiir wa kabiir in laga dhiidiyo arrintan in laga kaco in maxaa la yiraahdaa in tilaabo sharciyeysan laga qaado in la iska daayo wixii hore iyo maxaa la yiraahdaa jeedal basiidaha lagu dhufanaya iyo maxaa la yiraahdaa hanti baa la kala qaadanaya iyo ceeb weeyaan gabadha waa dhibaatadan waa loo geystay laakiin fadeexaynino banaanka ha keenina iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabo caynkaas oo kale inta la iska daayo iyo waxaan la qarqarinayo la daboolayo wax kasta oo gabarta lagu sameeyo banaanka inta la keeno nimankii ku sameeyay barta la soo istaajiyo tilaabo sharciyeysan laga qaado ya sharcigu wuxuu qaba islaamka la marsiyo nin walbaba inta indhaha loo soo xiro tiirka la taago taas ayaa waddankeenu u baahan yahay oo shacabkeenu ku degi karaa oo gabdhaheenu amni iyo ammaan ku heli karaan maanta toole adiga gurigaaga haddii dhibaatada haysanin oo wiilkaaga hooyo wiilkaagu hadduu dhibaatada adiga geystay ood qarisidoo dabooshid ya ood afka ka xiratidoo tiraahdo aan arrinta daboolo bari waxaad ogaataa adiga gabdhahaaga inay kusoo socoto arrintaas hooyo kasta iyo aabbo kasta oo daboolo gabar wiilkiisa dhibaato uu gabar yar miskiina usoo geystay oo saqiira usoo kufsado usoo geystay aabbo kasta iyo waalid kastoo daboola waxaad ogaatiin beydkiina iyo baradeenna inay bari haysato maantay toole waxaa qarinaysaa oo daboolaysaa wiilkaaga dhibaatadu geystay wey waa ilmo yaroo saqiira dhibaatadu u geystaad qaranaysaa balse waxaad ogaataa waxaa lii nin qayrkii loo xiirow adigana soo qoyso nin qayrkii loo xiirow adigana soo qoyso maanta wiilkaaga gabadhan soo kufsaday afkiibaad ka daboolatay waad qarisay arrintii waxaa weeyaan adiga bari gabadhaada ayay haysataa ha isdhihin arrintan dabool iyo wiilkaaga u ceeb qari iyo wiilkaaga yaan dhibaato loo geysan iyo maxaa la yiraahdaa halkaan geli iyo waxaas ha isdhihin wiilkaaga asaga qaldamay hooyo kasta iyo aabbo kasta oo ilmahoodu waxay soo sameeyaan oo saqajaanimo ah oo diinta islaam ka soo horjeedo garab taagan waxaad ogaateen beydkiina iyo baradiina bari inay haysato beydkaaga iyo baradaada ka fiira bari waxa wiilkaagu gabdhaha muslimiinta ah ee saqiirada ah ee shabaabka uu ku sameeyay aad qarinaysiin maanta toole beydkaaga iyo baradaada ka fiiri hooyo beydkaaga iyo baradaada ka fiiri aabbo gabdhaha idinku aad dhasheen ayay haysataa bari kuwa dhasheen haddii haysan weydana kuway sii dhalaan bay haysataa lianna waxaa la yidhi nafsigu meel dheer ma tago nafsi waa kii soo orda ee mar walbaba guntahaaga yimaada ciddaad nafsi ka geshid mar walba hoostaada ka fiiri shacabka inay kacaan waalidka qarsanaya gabdhahooda dhibka loo geeyey
hantida qaadanaya afka inta jirta dhahaya aan lacag aan ku xalino lacagta qaadanayo waalidow ilmihiina xaqa ka gelinina xaq daraha ka gelinina xaqa u soo dhiciya oo nin walba iyo nin kasta mid iyo laba iyo saddex kasta oo gabadha kufsado oo dhibaato u geeya tiirka hala taago hala soo cadeeyo halka hala soo dhigo maxkamadda islaamiga hala geeyo tiirkaasna hala taago arrintaas haddii nin walba oo gabar kufsada tiirka inta la taago qoorta loo dheerin lahaa way naga yaraan lahayd dumarkii Soomaaliyeed kuwii kabiirka ah iyo hooyooyinka ah kuwii dhexdhexe dhalinyarada ah kuwii saqiirada ay sabiyada qaangaarka ahayd nimankii cid ay dhaafayaan male horor bay noqdeen horor waa horor ayagoo meel kasta ay naag xuni taagan tahay oo ay aadi karaan ayay waxay raadsanayaan qof ay qasbaan oo qasab wax ka qaataan kadibna ay dilaan ama way jir dilayaan oo silic bay u dilayaan ama way dilayaan oo naftii bay dhaafinayaanba حسبنا الله ونعم الوكيل إلهي شرتينا إيشر كلا بهنا موتيو ولا لهي قالقة ميل كستود جوكتين كديدية كان كعا كان استاغا أرنتانو كاليتو لأنه أرنتاني وافسهاد في الأرض وفاحشد ويان وحي فسهادنا يان شعبكي وحي فسهادنا يان ددكي وحي فسهادنا يان أرضكي أينو لهين بفسهادنا يان لماكي سوماليد مصيبو أيين نقدر انتو دي بدنيد إير ونظيفة موياني إلهي شرطود هنا موتيو أنجي انت إسلامة إلهي شرطود هنا موتيو